wadamada adduunka naga xoog weynaa naga qood badnaa waxa weeye waa xanuun ay ka qayliyeen marka haddaan nahay inuu ummadda Soomaaliyeed ana intaas oo dhan hadii hal qof wada qaasiyo waa Puntland barkeedu xanuunsan oo aqal aan maanta تمام ونسأل الله العلي العظيم أن يحفظ البلاد وأرض الصومال بشكل عام. halka naga daawanaysan waa channelkan Horror Official hadda ku cusubtahay ku cimaamada subscribe share comment like hadii aan la joogtana waa ku maasad daawasho waa barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore aan u wadnay waxay gelin looga hadlayo xanuunkan saameynta weyn ku yeeshay dunidan ay maanta joogno inna wada ka taagnaa dunidan aan maanta ku sugannahay gaar ahaan Puntland haddana waxaan u jirnaa niman dhalinyaro salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله. سود وادو بلا magaca. وادوها ولا معنا magacay waa calayaan waxaan joogaa xeebta Boosaaso aad baan soo dhaweynayaa dhalinyartan waxa way ruunaysa dadka fikirkooda haddaan ahay dhalinyarta reer Puntland khaasatan dhalinyarta reer Boosaaso soo dhaweynaynaa macnaha ma dhicin barnaamijyo noocan oo xeebta la keeno oo ilaahu beerka beelan dadka oraa fikirkooda lagu ururiyo marka maanta waxay noo tahay maalin weyn way soo dhaweynaa soo dhawaada hadda ma saaxiib barnaamijkan ka hadlano maanta waxa weeye ka taxadar cudurkan dunida saameeyay COVID-19 marka maxaa wacyigelin ama baraarujin ama dhiirigelin ama taxadar u soo jeedinayd bulshada ku noqon Puntland iyo dhammaan Soomaaliya horta cudurkan coronavirus waxa weeye waa cudur adduunka oo dhan saameeyay wadamada adduunka naga xoog weynaa naga qood badnaa waxa weeye waa xanuun ay ka qayliyeen marka haddaan nahay inuu ummadda Soomaaliyeed dhibaato weyn horta wali nooma soo gaarin ilaahu beerka beelna wali nooma soo gaarin kiisas yar baa jira waa ka hortagi karnaa haddii aanu macnaha taxadar sameeyno fiican magaalada aan joogno hadda waxba laga soo sheegin waa waxa magaalo nabdoon oo ilaahu beerka beelna xanuun noocaas ah waxa wali lagu ma sheegin laakiin sida tan hadda aan ku jirno haddii aan ku sii wadno wax suurtagal ah oo macquul ah in xanuunka waxa way magaalada laga soo sheego ilaahay nooguma keenay waxaan rabaa bandooy magaalada la saaray waxbarashooyinka la kansalay sidaas la mid in xeebta la isugu imaanayo iyadana loo kansalo oo la joojiyo maanta waxaan filaynaa in xeebta aan la isugu imaanayo laakiin ma ay dhicin dawladda waxaan ugu baaqaynaa insha Allah tacaala corona ka hortagaynaa way leeyihiin waxbarashooyinkii bay xireen ganacsigii bay xireen bandooy magaalada saaran xeebtina dadku waa wada joogaan marka waxaan leenahay bulshada xeebta joogta u sheega wacyigelin siiya si ay macnaha waxa weeye uga digtoonaada xanuunka markaa hadda ma astagfirullah salaamu calaykum alaykum salaam soo dhawaado ku bilaa magaca Cabdishiid baa la yiraahdaa ee Boosa waa dhawahay Cabdishiid aad baa maasantay waxa barnaamijka laga hadlayo ama maanta ka hadlaynay waxa wacyigelin xanuunkan aynu seen wadana dunida saameeyay oo COVID-19 oo bulshada dunida oo dhan ay ka qeylisay maxaa u soo jeedinahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan Puntland horta waxaan soo jeedinayaa horta wax muhiim ah ma garatay maadaama aan haysan qalab looga hortago agabkeeda aan diyaar u ahayn waxaan leenahay dawladda alxamdulillah horta ilaahay nama soo gaarsiin xanuunkii waxaan leenahay elboorada meelaha dadku naga soo galayaan hal la adkeeyo laakiin dadka bandoogan magaalada dhexdeeda ah inta xanuunkii la helayo horta uu imaanayo markaas waajib weeye in la xiro laakiin hadda anagu xanuunkii bahayn in meelihii la bandoogareeyo dadkii meel ay ka casheeyaan waayaan dadkii masaakiinta ahaa dadku cashuur bixiyaal haloo tiro baan leeyahay anu systemkan wax laga bedelo hatta hadii lacala 3 saac fiidnimo laga dhigo 2 saac fiidnimo waa macquul hadda ma soo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. سود وادو كبلاي مقعد. ودوه ولا عبد الله مبارك محمد. هذا أستاذ عبد الله وعن تدوينها إن ودني برانش وعي قلنا أما مقرنسا حنون كان دنيا سامية كوفيد-19 دنيا ده كقيل السي قضينا الصومالي حد برشة الصوماليات أما جارهم بطلان وباقي لهاد أما مقرنسا وعي قلنا يوم تلوين وهذا. horta aad baa u mahadsantiin idinkoo dhalinyaro ina maanta meeli dadweynuhu isku imaanayeen aad ka sheekaysaan ama aad ka wacyigelisaan bulshada sida looga hortagi lahaa cudurkan horta cudurkan marka ugu horeysa waxa weeye waa masaa'ib waxa weeye waa ilaahay qadartiis waxa weeye imtixaan ilaahay weeye oo addoomiyaashiisa uu ku imtixaamayo marka cudurkan saas uu yahay waxa uu aad buu sifidiyaayo waxa la yiraahdaa waxyaalaha dhan oo cudurrada ku faafiyaan dhan uu ku faafiyaa marka waxaan aan mar walba ma taqaanaa ku baaqi lahaa in talooyinka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ama Puntland ba soo jeedinayso in la raaco sidoo kale dad badan baa bandowga ka hadlay habeenkii waxa aaminsanahay sida xukuumaddu aaminsan tahay in baalku xilliyada qabow iyo uu fidi karo marka bandowgana wuxuu ka dhigan yahay waa in cudurka xilliyada qabow uu faafiyo in ma taqaanaa
mataqaanaa uusan faafin marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida sharafta leh aad bulshada ugu dhex qaadaysaan assalaamu calaykum waraxmatullahi taala وعليكم السلام soo dhawaado ku bilaay magacaaga walaal magacay waa Badar Abaadir oo ku magac dheer badka caaqil maxaa u soo jeedin lahayd dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool Puntland anigu waxa u soo jeedin lahaa saaxiib in wacyigelin la sameeyo dheeraad si hadda ka jidho kale oo meelaha goobaha la isku yimaado kale sida goobaha waxbarashada suuqa meelaha sida xeebta kale in dadka intii loo yimaado wacyigelin la sameeyo oo la dhex maro hadda way socotaa laakiin laga sii badiyaa saasa kula talin lahaa ama fikirkii oo ku darsan lahaa sida gaadiidka oo kale hadeer sida shirkadda dhaweey oo kale dad ka badan 4-5 inay raacin gaari oo kale meelaha ciriirkana iskuutiga oo kale saasaan kula waxaan lahaa dadkuna inay xidhaan agabka loogu talagalay oo macnaha oo laga hortagay COVID-19 kaas in la xirto saasa kula dadaal lahaa Abdulrahman Hussein Ibrahim barnaamij waxaan ka hadlaynaa wacyigelinta ma ka qayb qaadanaysaa adna bulshada fikirkaaga ma la wadaagsan maxaa u soo jeedin lahayd bulshada ku noqol bulshada islaamka ama bulshada Soomaaliyeed khaasatan dadka Puntland ku nool xanuunkan maxaa ka dhihi xanuunka coronavirus lagu sheegayo waa laba nooc sidaa daraaddeed macnaha haddii ay dadkii bandow sameeyaan badina ay wax ka qaban waayaan taa waa macnaha intaasoo dhan haddii hal qof wada qaasiyo waa Puntland barkeedu xanuunsan oo caqli la'aan maanta hortaas caqli maaha marka waxaan u maleeyaa inay macnaha 2 saac ka dhigaan ardaydii waa xireen ma imtixaankii noo soo dhow yahay isna badii waa la sii daynaya habeenkii badnayn meel laga cashiyo xataa waa la waayay marka taa caqli ma waxaan ugu baaqiyaa inay horta dadka iska soo orday xeebtana xiro sida daraadeedna salaam alaykum walaal عليكم السلام ورحمة soo dhawaado ku bilaay magacaaga الله magacaygu maxamed xasan weeyaan dhawaan xasanow soo dhow mar labaad waxaan ka hadlaynaa barnaamij wacyigelin xanuunkan dunida oo dhan ka qeylisay COVID-19 maxaa wax talooyina ama wax fikrada siin lahayd bulshada Soomaaliyeed khaasatan dadka ku nool Puntland aad baa mahadsantahay saaxiib talada aan soo jeedinay aniga waxa weeye reer Puntland hadda waxay wadaan barnaamijyo looga hortagay xanuunkaas waana uga mahadcelinayaa taxadarka ay wadaan kaliya waxa ka dhiman inay iska xiraan xuduudada waayo maanta waad aragtay Puntland Oromo wax u joogtaa si baaxsan Ethiopia xanuuno badan baa ka jira saa'ida marka waxaan rabnaa Oromadan la iska saaro xuduudana hal xiro si loo xakameeyo xanuunkaas oo soo gaarin gudaha Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba لله الحمد لا يتوفر فيروس كورونا في بوصاصة ولا في الصومال إن شاء الله وننصح الإخوة الصوماليين بغسل اليدين باستمرار وعدم لمس الوجه أو العينين وكذلك ينتبهون من الأماكن المزدحمة تمام ونسأل الله العلي العظيم أن يحفظ البلاد وأرض الصومال بشكل عام والبلاد العربية بشكل عام شكرا dadweynuhu ka taxadara xanuunkan faraha dambas iyo saabuun ku mayrtaa waxaan leeyahay marka bulshada ku nool gobolkan bari gaar ahaan magaalada Boosaaso waxaan leeyahay xanuunkaas xanuun aafaah weey Ilaahay naga nabadgeliyo marka waxaan leeyahay dadkuna inka hatta xadiraan marka sida maartay hal kala fogaado marka nadaafada iyo maartay waxyaalaha muhiimka ah hal ilaaliyaan leeyahay marka saasaan ku talin lahaa